Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waa Toosno Media looga barateen wararkii Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada wararka caawa ugu door karoon aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo kulan degdeg ah ku qabtay Villa Soomaaliya fariina u diray shacabka. Heshiiskii 17 Sebtembar oo wajahaya 3 caqabadood iyo dowladda federaalka oo 2 shuruud ku xirtay dibadbaxa mucaaradka. xasan sheekh oo sheegay 2 arrin oo farmaajo uusan xaq u lahayn inuu sii wado. maxay tahay shuruudda uu shirka doorashada ku xiray Axmed Madoobe? Qodobada iyo qodobo dhowr ayaad ku maqli doontaan warkeena caawa. Ku soo dhawaada faahfaahinta warka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta kulan gaar ah la qaatay guddiga qaran ee xakameynta cudurka COVID-19 iyo xubno ku socda bulshada rayidka, wuxuuna ka dhageystay warbixino ku saabsan saameynta caafimaad iyo dhaqaale ee soo laba kacleynta cudurka coronavirus sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta Fawziya Abikar Nuur ayaa madaxweynaha u soo bandhigtay warbixin muujinaysa kororka tirada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee uu soo ritay cudurkan iyo tiro kale oo badan oo dhimasho ah. Wasiir Fawziya ayaa bulshada ku adkeysay inay taxadar buuxa iyo garowshiyo u yeeshaan halista cudurkan oo ku soo laba kacleeyay dalka. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalka xukuumaddu ay ku xaqiijinayso ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka, waxa uuna u xusay in la qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo dadka iyo dalka lagaga xakameynayo cudurkan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada. Qoraalka ayaa intaa ku sii daray bulshada ayaa laf-dhabar u ah dadaalka dowladdu ay kaga hortagto faafidda cudurkan, sidaa darteed waxaa waajib ah in aan u istaagno wacyigelinta bulshada una hoggaansano fariimaha caafimaad iyo qorshayaasha lagaga hortagayo. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Farmaajo ayaa ku dhiirigeliyay qorshayaasha caafimaad, dhaqaale iyo amni ay soo bandhigeen guddiga qaran ee xakameynta COVID-19, wuxuuna ganacsatada Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay dadkooda u turaan waqtigan adag. 24 saac ee u dambeysay waxaa dalka laga diiwaan geliyay 209 kiis oo coronavirus ah, kuwa 191 ka mid ah ay ku nool yihiin gobolka Banaadir, halka 28 kale ee la diiwaan geliyay ay ku nool yihiin Somaliland. Sidoo kale 12 qof ayaa u geeriyootay cudurkaasi 24 saac ee u dambeysay, halka 21 qof oo kalena ay ka soo bogsadeen sida lagu shaaciyay qoraal gordhow ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka. Sidaa darteed waxaa waajib ah in aan u istaagno wacyigelinta bulshada una hoggaansano fariimaha caafimaad iyo qorshayaasha lagaga hortagayo. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Farmaajo ayaa ku dhiirigeliyay qorshayaasha caafimaad, dhaqaale iyo amni ay soo bandhigeen guddiga qaran ee xakameynta COVID-19, wuxuuna ganacsatada Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay dadkooda u turaan waqtigan adag. Heshiiska 17 Sebtembar 2020 dhex maray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waa udub dhaxaadka heshiis doorasho loo dhan yahay oo dalka ka hirgala siday ku celceliyeen beesha caalamka, balse waxaa jira caqabado badan oo ku xeeran heshiiska lagu gaaray magaalada Muqdisho. Caqabadaha shirkaasi ka soo laabtay waa kuwo diidan in la hirgeliyo hannaan doorasho iyo in si hannaan hufan ah looga gudbo marxaladda kala guurka ee dalka ku sugan yahay. In heshiis laga gaaro xaaladaha cakiran ee dalka ayaana hadda maraya heer ay beesha caalamku ku qasbanaatay si muuqata inay usoo farageliso howlaha la iskugu keenayo dadka ku kala aragtida duwan habsami u socodka marxaladan. 5 caqabadood ayaa la aaminsan yahay inay ku xeeran yihiin hirgelinta heshiiska 17 Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho. 3 ka mid ah waa kuwo sii jiitamayay, halka 2 qodob ay timi kadib dhammaadka muddaxileedka xukuumadda iyo dhaqanka bilihii ugu dambeeyay. Dowladda muddaxileedkeeda dhammaada ayaa soo faragelisay arrinta kuraasta gobolada waqooyi Somaliland. Hayaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana lagu eedeeyay inuusan ku xushmaynin Cabdi Xaashi oo ah guddoomiyaha aqalka sare isla markaana ah qofka ugu sarreeya ee xildhibaan ka soo jeeda gobolada waqooyi inuu u daayo soo xulista, waxaana ka dhashay dood aan ilaa iyo hadda lagu heshiin, iyadoo Villa Soomaaliya ay arrinkan
u wakiilatay Mahdi Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilhaynta. Maadaama heshiiska doorashada ee 17kii Sebtembar la gaaray ay ahayd in 2 meelood maamul walba uu doorashada ku qabto, Gadana ay ka mid noqonayso goobaha laga rabo in Jubbaland ay doorasho ku qabato. Halkaasi waxaa ka soo laabtay dood badan maadaama ay dowladda madaxweynaheedu dhammaaday, ciidamo ku daabushay gobolka Gado, heshiisyo badan oo la gaari lahaa arrimaha doorashooyinka waxay u burbureen arrinta. Halkaasi waxaa ka soo laabtay dood badan maadaama ay dowladda madaxweynaheedu dhammaaday, ciidamo ku daabushay gobolka Gado, heshiisyo badan oo la gaari lahaa arrimaha doorashooyinka waxay u burbureen arrinta gobolka Gado, iyadoo maamulka Jubbaland ay doonayaan inay maamulaan sida ay maamulada kale u maamuli doonaan goobaha doorashooyinka. Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa isku haya iyadoo guddigii farsamada ee Baydhabo ku shiray la sheegay in arrintaas isfaham ay ka gaareen, balse waa caqabadaha ugu waaweyn ee ku xeeran doorashooyinka. Guddiga doorashada oo ay dowladdu magacaawday waa lagu muransan yahay, waxaana la sheegay inay ku jiraan xubno daacad u ah taliska Farmaajo, taliyayaal ka tirsan hay'adaha nabad sugidda qaranka, iyo shaqaale ka tirsan xukuumadda uu waqtigeedu dhammaaday. Midowga musharaxiinta iyo 2 ka mid ah maamulada federaalka ayaa ka hor yimid kuwaa oo weli saluugsan habka loo xulay guddigaasi, waxaana shaki la geliyay sida ay u qaban karaan doorasho loo siman yahay. Dhanka kale, waxaa jira 2 qodob oo yimi kadib 8 February 2021 markii uu dhammaaday muddo-xileedka madaxweyne Farmaajo. Maadaama uu muddo-xileedka ka dhammaaday, madaxweynaha Soomaaliya ma gaari karo go'aan masiiri ah, taasina waxay la macno tahay in saamileyda siyaasadda ay ku biirto miiska wadahadalka. Baarlamaanku wuxuu muddo-xileedkiisii dhammaaday 27kii Diseembar, sidaa darteed golaha sharci dejinta way sii joogayaan ilaa kuwii bedeli lahaa yimaado, balse madaxweynaha xaq uma laha inuu kursiga ku sii fadhiyo. Sidoo kale, qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay inay luntay kalsoonidii lagu qabay dowladda maadaama lagu tuhunsan yahay in taliska jooga ay doonayaan muddo kororsi ama in xoog lagu maamulo waddanka, waxaana jirta in ciidamo loo adeegsaday dibadbax nabadeed oo la diiday. Sidoo kalena, siyaasiyiin, xildhibaano iyo musharaxiin lagu rasaaseeyay caasimadda. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa qoraal kooban uu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku shaaciyay mowqifka ku aadan shir kale oo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay isugu yimaadaan, wuxuuna ku xiray 2 shuruudood. Waxa uu sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay ka qaybgalka shir ka dhaca meel ammaankeeda lagu kalsoonaan karo, iyo in gundhiga shirkaasi uu ahaado heshiiskii ay madaxdu gaareen 17kii Sebtembar. Sidoo kale, qoraalkan oo lagu baahiyay barta Twitter-ka ee madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyay oo lagu bogaadiyay wadahadallada ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta. Dowladda Jubbaland waxay dhiirigelinaysaa qabtaana in la tabantaabiyo waqtigana la siiyo wadahadallada u dhexeeya ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta. Waxay sidoo kale diyaar u tahay ka qaybgalka shir ka dhaca meel amnigeeda lagu kalsoon yahay, gundhigiisuna yahay heshiiskii 17kii Sebtembar, ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha Jubbaland. Qoraalkan Axmed Madoobe wuxuu ku soo aaday iyadoo madaxweyne Farmaajo uu iclaamiyay shir madaxda dowlad goboleedyada uu uga dalbaday inay Muqdisho isugu yimaadaan 4 bishan. Hase yeeshee, horey madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa u soo jeediyay dalab ah in shirkaasi lagu qabto goob ammaankeedu ka madax bannaan yahay madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday. Dalabkaasi oo sida muuqata aan weli la xalin.